أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم walaalyaal cod yaroo kooban oon ugu magac darahayo waxyaabaha maaragtay ayna suurtagalka ahayn inay isqabtaan macnaha ayaa waxaan rabaa inaan kaga hadlo كلها دد موضوع أما أجندياش عنو أن كهالله أما أن كل مشغول سنة هاي وجميسي مدو إثيوبيا سومالي ده وقاعدين يعني سومالي جلبات سيدا أوجد وحيابها عن سقمنين وحيابها ما عرفت opposite كإسكوا أما contrary ليدا هذا وحنساك وضع وحاجرا أرجو من مدونا وهذا سيدا تصال أهان جفاد ودني حرينته وقاعدية ومدة سوى هالجنتي هالجن كاسو حويا شيء وحيابه فربضان أي هالجن كقوتي وحاج شري سروينه وحاج شري والله دحى وحاج شري جودي فلان وحاج شري عيدا هويسن وحاج شري arrimo bulsho urur dhalinyaro urur hooyooyin ururo culimo diina bulsho اسمها ساتر جاليدو dibadaha marka ayada markay hogaanku xilliga oo maaragtay aragtidu markay soo gaabato ee la rabo marxaladaha noocaas oo kale kaba soo qaad hadda 28 sano ayaa waxa socday barnaamij hubaysan intaas heshiisay intaas dhaawacantay intaas barakacday intaas waxa ka dhashay agoomooyin jiilay lahaayeen marka maxay umadaasi maal baa la waayay maxay u dhamaanayeen waxay ahayd wada sax ah oo lagu gaarayo xorriyad baa tii markay soo yaraato ee hogaankaas aragtidu ka gaabato durba waxa oo hor arki kuwa elite-ka ee indhaha furan ee waliba dhalinyarada u badan tahay ee kaadiriinta jabhadda la yiraahdo durba waxay arkayaan inuusan jirin ajandayaashii xalka marka hogaankii marka sanadii 2015 wuu cadaystay sanadii 2018 aan dhahe way cadaysteen si toos ah aragtida u gaabatay gumaysigii baa la isku soo dhiibay marka gumaysigii marka la isku soo dhiibay xornimo doon baan ahay marka وجميسي بان كم مدهانا يا حرنما دوم بانا هي marka labadaas isma qaban karto waa macnaheedu waa laba shay oo aan isqaban karin waxa jira iyaduna waxa jira shaygu ummadaasi ama markii walax baahi loo qabo markii daraasaad la sameeyo شيء باهي الله قبو هدان كسو قادنا هدا صحافة مدحا بنان ايا xilliyadii markii ay hogaankii ama jabhadii is haysatay ay lahayd ma aragtay agensiyo ay warar ku soo gudbiso aragtidii gaabatay waxay sababtay inay galaan dhalinyaradii ama dadkii activity-ga ahaa ay wax qabanayeen waxa loo baahday markii isgaarsiin saxaafad madax bannaan saxaafadii marka maadaama hogaankii ay ka mid ahaayeen ay taageersanayeen intaasoo sano waxaa bilaabanaysa marka madax bannaani si shakhsi marka isgaarsiintii noocaas ahayd ayaa waxay dhexdhexaad ka noqonaysaa marka ajandayaashii gumaysiga oo macnaheedu wakiilada gumaysigu iyo barnaamijkii ay iyagu ka mid ahaayeen ee hadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya ayaa hogaankii markuu aragtidiisa ka gaabtay ayaa wuxuu ka dhaadhicinayaa inay qalin lagu halgamayo
kuwan kale dhalinyarada ee furfuran ee maskaxda furan way ogyihiin in waxani feeg yahay oo qalin lagu halgamayn sida awgeed isla mar ahaantiiba waxay si iyaga oo isticmaalaya saxaafadda ayaa waxay leeyihiin waxaan nahay annaga dhexdhexaad waayahe kaba soo qaad hadda nidaamka wakiilka gumaysiga maanta haddii adigoo saxaafaddii ah gubernimo doon ahaa oo activista ahaa aad xilligan xaadirka u qirtid inay nidaamka DDS ay u yaqaanaan kililfaat ay u yaqaanaan wakiilkeeda eega iyo ajendayaashaadii gobernimo doon ee iyaga laftigoodu tayo hooseynteedu gumaysiga u galay yaan dhexdhexaad u noqonayaa sida awgeed waxaan fulinayaa marka waxaan u qirahayaa inuu waddankii nabad yahay sida ay u qireen kuwii gobernimo doonka ahaa meel aynan nabadi jirin oo hadda beesha caalamka way ka soo ka dhacayaan markii halgankii sida ahaa 28 sano soo dagaalamayay bannaanada bannaanbaxay safaaradaha ku bannaanbaxay baarlamaanada Yurub Ingiriis Mareykanka kongareesada ku bannaanbaxay ayaa maanta Itoobiya ayna jirin nabadgelyo u qarahaya ee kamida isma qabanaysa taasina waxaan isqabanaynin marka iyadana waxaa jira shakhsi dadaalahay laakiin dadaalka uu dadaalayo mar hadduusan xirfad u lahayn ama uusan waxan takhasuskeeda aqoonin waxa weeye hadda waxa weeye anoo dhakhtar ahayn cidna ma daweyn karo laakiin dhakhtar inuu jiro waan garanayaa mar haddaan jartay marka inuu dhakhtar jiro dhakhtarkii baan raadsanayaa tala bixin baan weydiinayaa dhakhtarka baaritaan buu ii dirayaa hadduu doono dhiigga laga soo baadho dhasheer baar buu u dirayaa say laftiisu waxyaabo uusan dhakhtarku aqoonin baa jira oo uu la kaashanayo aaladaha oo la baarayo dhiigga iyo waxa ay marka wixii xanuun ku arko dawo ku siinaya marka aragtidaas mid dadaalaya tusaale ahaan haddaan hadda soo qaadano sanad guurada afartanaad ee kal hore dhacaysay ee jabadda waddaniga xoreynta ogaaday inaad abaabushid kama dhigna inaad xorriyaddii gaadhsiisay sababtoo ah waxaa jahawareeray oo hoos u dhacay ajendayaashaadii istiraatiijiyadeed oo waa tan halgankaagii uu u galay gumaysiga sanadii 2018 marka qoladaha aad ka mid tahay markaad bannaanada ay dadku ay soo bannaan baxayaan shacabweynihii taageersanaa halganka ay calaamadoodii soo qaadanayaan iyagu shirarkii qabsanayaan is abaabulahayaan dhaqaalahoodii keenayaan kuwa marka activistayaasha ee hor jooga ama kaadiriinta aan leenahay ayaa waxay codkooda ku bilaabayaan kow gumaysiga Itoobiya wada hadalkii haba yaraatee waxuu ka dhaweeyay ma jiro kaasi ma oga marka inuusan wada hadal jirin inay hoggaankaasi u khiyaameen kaadirkii markaas aan xogaalka ahayn uu gabadh calaynaya sababtoo ah Itoobiya aan ka mid noqonaynaa waxaan bedelaynaa wakiilada gumaysiga aragti noocaas ah la sii dhaadhiciyay nabadgelyo aan ku halgamaynaa Itoobiya oo iyadu barnaamij military oo ciidana seeda ugu halgamaysa iyadii baaba ka samaysan military ka samaysan iyadii baa yaa military ka samaysan sida awgeed waxaan qabaa marka kaasi codkiisa wuxuu leeyahay marka wax alla waxa Itoobiya ka dhabaysay haba yaraatee ma jiraan wada hadalka waxay sheegayaan marka waxay leeyihiin isaga laftiisii baa wuxuu ku dhawaaqayaa aan nabadgelyo ka ahayn mar haddaad marka isma qabanaysa marka nabadgelyana waa la helay mar haddii aad nabadgelyada u qortay waxaad ku hadlaysaa gumaysigii baad u shaqaynaysaa marka hadda saddexdaas qaybood ee ahaa ma aragtay qolyaha saxaafadda ah ee gumaysigii iyo wakiiladiisii iyo ajendayaashaadii gobernimo doon leh dhexdhexaad baanu u nahay
isma qabanayso adoo gubannimo doonaha gumaysigii baan u galay oo Ethiopian ka mid noqonaya iyadana isma qabanayso adiga oo kaadir ahaa oo bisayl siyaasadeed sheeganaya inaad gumaysigii nabadgelyo u qirtid mar haddaad nabadgelyo u qabto waxay marka sida awgeed waxaa laga wadaa laba hal iska daayo xornimo doon in la noqdo oo laga cararo dakano oo laga cararo dhaawac oo laga cararo dhimasho ma soconayso ma aha khasab adoo gubannimo doon inaad adigu aad xorriyaddii noolaatid waxaase lagama maarmaana laba mid inaad inta halgan ku jirto shahiidid iyo inaad xorriyaddii gaadhid alternative laba ayaa ma jiraan sida awgeed halganka jabhadda waddanka xoreynta ogaadeen waa in lagu soo celiyo tubtiisii saxda ahaa xalku waa kaas ويسي مدو إثيوبيا هدعو سوماليدا اوغادين يا خرودو سو نقدن وناغسن وانو احمد سعاد واسحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته